Nabadda wadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha. Barnaamijkeena ciyaaraha iyo maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa horyaalada kala duwan ee Ingiriiska, Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska. Sidoo kale waxaynu ku soo qaadan doonaa isku aadka wareegga 16 ee horyaalka kooxaha Yurub. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan inta ay socoto baahintani. daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe-ta iyo like-ta iyo share-taba la ogaataan mahadsanidin. Ugu horreynba waxaynu soo qaadan doonaa ama aynu soo qaadanaynaa horyaalka La Liga oo ay xalay ka dhaceen kulano aad u adag. Barcelona oo beryahan baddoolidu la ciirciirayso iyo kooxda tamarta yar ee Osasuna ayaa ku kala calaf qaaday ciyaar dhibcaha lagu heshiiyey oo mindhibic la qaatay halkaasi oo lisla gaaray 2 gool iyo 2 gool. Halkaasna waxaa weli kasii socota guul la'aanta Barcelona tan iyo markii wiilasha reer Jarmal ula duur ah kula soo dhaceen garoonkooda Allianz Arena. Real Betis ayaa iyaduna kooxdii mar hoggaanka ku naaloonaysay ee Real Sociedad dambaska ugu qoyshtay gagideeda iyada oo ku marti soortay 4 gool iyo waxba. balse ciyaartii derbiga ahayd ee la wada sugayay ayaa waxa ay ku soo dhammaatay Atletico oo lagu xaweysiiyay iyada oo hoggaanka horyaalkana sii dheeraysatay kooxda Real Madrid ilaa ay ka gaadhay 42 dhibcood isla markaana Sevilla ay ku tiri balcari soo qabo. Dhanka iyo horyaalka Ingiriiska haddii aynu u baydhno waxaa lagu kala baxay sida tan ciyaarihii ka dhacay maalintii shalay ilaa iyo xalay. West Ham iyo Burnley ayaa waxa ay ku kala baxeen ciyaar eber lagu dhamaystay 90 daqiiqo halka Leicesterna ay garoonkeeda ugu heystay kooxda Carabta reer Al Sacuud ay dhawaantan la wareegeen Newcastle taasi oo kaabada 19aad ka soo wiiqlay. Crystal Palace iyo tababaraheeda Fieri ayaa iyaguna kooxda Everton hilfaha ugu qaaday gegidooda Selhurst Park ee magaalada London iyaga oo 3-1 ku dirdiray. Dhanka iyo Faransiiska haddii aynu u leexano Marseille ayaa ka badisay kooxda yar ee Strasbourg halka PSG-na ay ku shaandheeyeen garoonkooda kooxda Monaco. Halkaasna waxaa calankiisa sare u taagay ciyaaryahanka da'da yar leh ee Kylian Mbappe oo xalay watay qoriga baroonka reer Bohole. Dhanka iyo Talyaaniga haddii aynu u leexano kooxda Napoli ayaa mar kale la hakiyay 1-0 lagu jiray halka Interna ay hoggaanka la wareegtay. Lazio laga badiyay kooxda Verona garoonkeeda lagu tabar sheegtay. Qodobka ugu xiisaha badan leh iyo Championka haddii aynu tagnana wareegga 16 ee Championka kooxaha Yurub ayaa oo aad u xiiso badan ayaa isna la isku beegayaa maanta waxaana la sugaya geesaweynta madaxa la isu gelin doona iyo sida ay u dhacaan. waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.